guddidani waa guddi iskeedu soo xilqaantay isla markaasina u istaagtay wax u qabashada walaalaha danyarta ah ee ku caydhoobay abaartii darneed ee ka dhacday dalka kuna nool kaamka tuulada Laangaloolay oo ka tirsan deegaanada hoos yimaada degmada Duruqsi ee gobolka Togdheer ayay waxay guddidani deeq raashin ay soo direen walaalo muxsiniin oo ku kala nool daafaha dunida iyo dalka gudihiisa ay gaadhsiiyeen kaamkaasi xubnaha guddidani iyo sidoo kale wakiilka hay'adda Somjel ayaa waxay ugu horeyntiiba ka warbixiyeen deeqdani raashinka ay gaadhsiiyeen deegaankaasi halkan waxaanu ku nimi guddi deeq keentay meesha la yiraahdo tuulada Laangaloolay deeqdaas oo gudaha iyo dibadda dadka khayrka jecel iyo kuwa isxilqaamay ee walaaladoodii ay soo gaarsiiyeen dadkaas oo dad barakacay oo reer miyaha xoolay ka madheen isku urursaday tuulada Laangaloolay ayaanu soo gaarsiinay deeqda walaalada iyo gudaha iyo dibadda ay ka soo direen isu soo xilqaameen waxaanu diyaar u nahay inaanu ku wareejino guddi kale oo magaalada joogta aanu tagnay iyo dadka barakacayaasha ay iska qabteen sidii ay ugu qaybin lahaayeen dadka baahan waxaanu kale ku boorinaynaa dadka deeqda jecel iyo deeq bixiyaasha iyo wixii khayrka jecelba inay wixii ay ku soo kordhin karaan dadkaas caafimaad ma hayaan waxbarasho ma hayaan xoolo kuma tiirsana wixii ay u tari karaan dadka deeqda jecel iyo muslimiinta culiba aw diinta inay dadka soo caawiyaan oo si il naxariisada u soo caawiyaan waa ku boorinaynaa runtii halkan aan joognaa waxa weeye tuulada Laangaloolay oo ka tirsan degmada Duruqsi waxay sugu yimid dad aad u fara badan oo barakacayaala sida odayaashii hore ay sheegeen ma laha wax adeegyada bini'aadamku u baahan yahay waxay ka haystaan ma jiro haba yaraatee waxa ugu sii daran waxyaalaha la liqo cuntooyinka ugu sii daran runtii anagoo isxilqaanay oo guddi ahaan naloo xil saaray inaan gaadhsiino in raashino oo dadka walaalaha ugu soo deeqeen gudaha iyo dibadba waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa dadka walaalaha ah ee runtii ka damqaday baahida jirta ee og yihiin aafaadka abaaro ay keeneen runtii halganka badan u galay say dadka u qoodin lahaayeen ilaahay baa u soo dhiibay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay waxaanu ka baryaynaa weydiisanaynaa inuu mid tan ka badan ugu soo dhiibo ayaanu ilaahay weydiisanaynaa runtii waxa arintan qayb ka qaatay ma sha Allah in hay'adda Somjel oo runtii iyaduna qayb ka qaadatay raashinkan halkan ka arkataan waxaan halkan rabaa inaan uga mahad celiyo dhammaan walaalaha khayrka jecel ee nagala qayb qaatay u gargaarka tuuladan xaaladaada ku jirtay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay halkay ka soo saareen wax ka khayr badan u galiyo sidoo kale waxaan halkan uga mahadnaqayaa hay'addan wakiilka ka ahay Somjel oo iyaduna ka qayb qaadatay deeqdan aanu maanta soo gaarsiinay magaalada Laangaloolay way naga gudooman doonaan insha Allah waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka khayrka jecel ee walaalaha muslimka ah halkan waa magaalo ay ku nool yihiin dad xoolahoodii ka dhamaadeen kadibna caruurihii ay guryaha fadhiyaan aanu idin tusi doono waxa la waxay qabtaan aanay jirin xoolay raaci jireen markii hore laakiin marka waxa la waxay qabtaan ma jirto caruurahaas sidii loogu fidin lahaa adeeg waxbarasho inaan ka hawlgalno ayaanu rabnaa cid kasta oo garabna siinaysa ama jecelnay wax nagala qabatana waxaanu leenahay ahlan wa sahlan gudoomiyaha deegaanka Laangaloolay oo hadallo kooban isaguna halkaasi ka soo jeediyay ayaa waxa uu ka mahadnaqay deeqdani la soo gaarsiiyay anigoo gudoomiyihii Laangaloolay Salmaan Aadan Maxamuud waxaan halkan aanu saaka ku gudoomanay aniga iyo gudidaydiba raashin dhan deeq dhan ilaa 8 qoys oo isugu jirta nooc walba waan ku gudoomanay halkan waxaan uga mahad celinaynaa walaalaha iyaga noo soo diray dibad iyo gudaba nooga soo diray deeqdan aan mid dambana aanu ka codsanaynaa kaamkani barakacayaasha ee tuuladani Laangaloolay ku yaala ayaa waxaan ka jirin baahiyaha asaasiga ee bulshada sida biyo nadiif ah waxbarasho iyo sidoo kale xarumo caafimaad waxaana xubno kamid ah caruurta deegaankaasi oo la hadlay TV-ga Star ay ka codsadeen walaalaha muslimiinta in laga taakuleeyo sidii loogu sameyn lahaa waxbarasho waxaan caruurta Laangaloolay waxaan doonayaa waxbarasho hore iyo meel ku barano waxaan meel lagu dhigano ma haysano doonayaa wax soo dhigano magacaawada jaamacad وخالد بكيله فقانا رقو حرطة ستار تي في برعو